Assalaamu calaykum jimco wanaagsan asxaabteyda sharafta badan ee qaayaha waxaa idin leeyahay jimco wanaagsan waxaan kaloo iniga codsanayaa ciwaanka inaa meel dheer ii gaarsiisaan oo ay saartaan subscribe like share comment videowan wallaahi waxaan geliyay jundi fara badan aan geliyay cuntadan waa taqaanin soomaha magaciya ii gambiyey markaan kariyay waa cunto carabta zaaid u soo karsato waa carab iyo cadaanba way karsadaan marka ciwaanka meel sare halii gaarsiy farkeetada lagu qaadan kara laakiin anaga reer Soomaalina farkeeto waxaan ka naqaanaa gacanta aan maalnaaye bahashaasaan kasoo tuuray aadka u macaan badan waana ka heli doontaan fiidiyowga dhammaysta qaabka u sameeyey wax walba waa arkaysid horta ma ogtiin wax walba haddaad isku daydaa inaad sameyn kartaan alxamdulillaah laakiin aniga sideeda kale cuntada maasha allah cunto kariska ilaaha intaas ugu mahadinaya waa garanaya marka wixii iga soo horbaxo waa sameyn karaa qof wixii kasoo horbaxo oo sameyn karo waa qof cunto kariskiisa fuul yahay wax kariska yaqaano laakiin qof aan wax karis aqoonin way adag tahay alxamdulillaah koley adigana waa sameyn kartaa wax karista soo dhawaada halkan waxaan ku haystaa saliidiya waxaan ku shubta birtii horta mideeda labaadna waxbaa iniga iloobay hilibka shiidan saa hadda aniga maanta aan u sameynayo ilma adeerayaalo u karsada baastada ku cuna jabaatiga ku cuna ceeshka ku cuna yaa waxaad doontiinba ku cuna laakiin saana maanta u karana hilibka shiidan u karsada saane aad iyo aad ugu macaan badan tahay wallaahi intana waxaa igu qasan bahashii jabaatigii ama ceeshkiisa u kala taqaanaanba ceesh ma dhihi kari laakiin marka asxaabteeda soo dhawaada basasha markay gaduudato saliid yaraa kusii daray waxa saliida ugu daraya wax kale ma aha yaa saliida waa ku badashaa dhehina sababtay tahay bahasha waxaan kala rabaa bilaa saliidaan kala rabaa waa arki doontaan uun fiidiyowga waqti isiya oo dhammaysta anigana faa'iido ii tahay intana hilib shiidan aan ku haystaa xabad yaan shiishid kabsar caleen iyo toon aniga speesiska kale ma isticmaali kari sababtay tahay dadka waxaa ahay raashinka waxyaalaha badan lagu daro uu yara xanuunsadaa marka sidaa la ajiraya kabsar caleen iyo toon iyo yaan shiishid iyo reeko laba xabaa ku daraya wax kale speesis kale suugadaas aan ku daraya ilaahay abuurta mala quruxda iyo macaanka uu kasoo baxna kaale iska aragoor kuu noqonaya laakiin sida loo sameynayo haddaad u sameyso suugada horta way macaan badan tahay kaliya waxaad ka reebtaa xawaajiga iyo waxyaalaha kale kor socdo ka reeba bashasha hadda way ii gaduudatay marka waa kaasa waa jimcihii ugu horeeyay 2026 mise ya jimcihii ku xigaa mooya maanta bishii 10 waaye marka soo dhawaada meesha waa meeshiina subscribe like share comment waa idinka xaggiina anigana waxaan ka qaadayaa dhiirigelin hilibkaas shiilaa bisha maanta 9 January Friday waaye marka asxaabteyda sharafta badan ee qaayaha hala soo dhawaado meeshaan halii qurxiyo jimcihii labaad inay tahay jeclaa 2026 laakiin maanta bisha 9 buu maraa January 9 walaa adduunyo wuu ordayaa ilaa qaatumada noo toosi rabbiyo raxmaano adoonkaadaan marka waa kasaa cimri dheer cibaada sugan iyo caafimaad rabbiyo nasiib wallaahi waqtigu wuu ordayaa kabsar caleenta ani xargahaas dhamaadaan meeshaan kabsar caleenka taalane yaa caleemaha wayba ku yar yihiinba maxaa la dhihi jiray xargahaas u badan acuudu billah hergebna wuu ihayaa hadalkana ma aqaano waan kari la'ahay maanta bismillaahi carabka jale ama isoo qortaan walaa hergeba ihaa sanka buuxa sanka ii buuxa anigana maraq ina cabo ma baleebo karaba maraq wuu yaalaa laakiin ma cabi kari bismillaahi raxmaani raxiim
Marka waa kasaa asxaabteyda, bashashii markaan shiilay iyo barbaroonigii, waxaan ku sii daray hilibkii, yaan shiishiidaan ku daray, kabsar caleen iyo toonkii aan ku dar laba xabo reeka hadda u dambeysiinaya. Kadib waa isku shiilayaa, soo ma jeedi. Wallaahi asxaabta saanay ku macaan tahay. Suugadan oo kariya maanta, ilaahay maxamed sameeyaan ku dhaartay. Saas intaa loo fiiro kan baasta ama u karsanaa la dhahay xitaa. Aad bay u macaan badnaa. Suugada hilibka shiidan saan u kare. Laakiin hilibka basasha iyo yaanyada markii la dalaco hilib kor loogu daray hilibka shiirka xoolaha waxaa soo sugiya. Hadda hilib macaan badan uu ku soo baxay. Hilibka shiidanna geel uu noqon karaa, lo uu noqon karaa. Inkasta hadda aan hilib shiidan oo la isticmaalayo cusbo yaraa kor ugu daray. Kadibna daboolka la saaraya hal galaas biyo ku daraysaa. Daboolka saar asigaa iska bislaanay taq 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 taq. Wallaahi billaah asigaa iska bislaana markaas ay bahal macaan badan. Suugo kaale iska arag oo waaye ama jeedin biyo ku dar hal galaas biyo ku dar. Walaaqaya asigi markuu bislaadaan ku dhahay macaanka qatarka kaale iska arag. Haye afaarahan aad u macaan tahay. Yaa laga war doono wallaahi. Yaa laga war doono ani horta waa soo karinaa marmar. Ilaahay maan ka saxmalaa. Kad suugu ma jiro soo diyaarsan tahay. Saliidi koray ka soo kormarto soo tufte. Soo ma jeedan macaan wax walba ku karsan kartaa halkaan waa kana alaabteena aan ku haystaa. Birtan waa kan way ii saaran tahay saliid la'aan aan dubi raba. Waayo hadda saliid ku darto. Ileen wixii intaad saxan saartaa suugada ma marinaysaa. Kadibna ofanka gelina maano meesha dhan wada saliid uu noqonaa sida la ajirada. Saliid dhan ha ku dubana. Ani saliid kulli mun ku dubay saar yeelaya. Burkaan hadda u jeedin waxaa ku qasay sheeg ukun horta kuma jirto. Waa caano iyo fixiso iyo sokor yar waaye. Sokor yar oo hadan meel dheer oo macaankiisa xitaa aan la dareemaynin waaye. Markaas saxaabta waa kaasaa soo ma jeedin. Quruxdaas oo kugu soo baxaya. Quruxdaas oo kugu soo baxaya waa ceesh camal waaye. Fixiso meel dheer aan ku daray caana ku qasay. Macaan kaliya noqonaya. Suuri codka waa istaaji waa hargab xun ba ahaayo. Marka waa kaasaa u qabanaya saasa u laabaysaa. Sida waxa u laabaysaa baashid waa kana saanaan dhahaa dana. Wasaas inta u jibiyo. Ma jajabaysa laakiin yaa. Haddii baashas anaa gacantay ku sameys jabaati aan soo gaday ilaa abuurta mana. Saasaa leedahay. Mana jabay saxanka markaa geey waa kana. Ukun ha ku darin. Ukun ha ku darin. Ukun hada ku darto hawo yar ila tahay inay jajabo doonto ila tahay mal. Inkasta ukuntu wax way jilcisaa soo. Baashan aad u jilcaneed wallaahi suugada lagu daraayo maxaa la dhihi jiray ii sheeg waxa aad ugu sii macaan badneed ba markay qaleelka lagu cunayo. Caadi ma ahayn dawaa kana kabsar caleen yara kor ku daadsaday. Kabsar caleen xitaa waxaa sameyn kartaa. Marka habad u saaris xitaa waa ku sii darsan kartaa laakiin aniga ma rabin qaybtan kor bisa u rabay. Ofanka gelina haddana ku karkaya daaraa. Ku karka xitaa daarabto dibka u yareynaya daarabto u gaabanaysa waa kaasaa. Quruxu ugu soo baxay warkaal iska arwar baashi way macaanta. Caadi ma ahana ku dheh. Wallaahi aad u macaaneed. Macaane baashan. Bismillahirrahmanirrahiim. Asxaabta sharafta badan ee qaayaa soo dhawaada dawaa kana waa soo bixinaya. Hadda waa ku celiyay wax yar dad waxa uu gaada dawaa kana. Video waa ku soo celiyay wuu qalalay geesa oo dhan wuu ka qalalay. Saliidi wixii oo dhan mu jeedi qaale loo noqdo qaxa. Hoos kor iyo hoos xitaa wuu ka qalalay. Kaali iska aragade macaanka u baasha maanta ahaa waa kana de saas le u qaadanaysa daarabta farkeeta ku cunay laakiin aanay si farkeetada wax loogu cuno ma garanay qaandada haa laakiin farkeetada ma garanay misanaan kar ilaahay.
waa kaasaa saasaa u qabsanaysaa afka lee gashanay macaanka saxankaas waa dhameene saxankaas anaa hubo laakiin ana shiirka igu baxee dadka guriga ila jooga wax macaan waay way macaan tahay noo kari yaa maasha allah waa kasaahe asxaabteeda soo dhawaada aad bay u macaan badneed baashaan anigana shiirkii igu baxee guriga daaqadaha dhan inta u balbalaqay waxaan sugaan ado balaankan waa u baxay habar yaraa soo qaat markaa soo noqday see u macaan badneedne maasha allah yaa kasaaga dadka waxay dhahdaan cunto karisniga waaba taqaanaa ma maqaayad noo furtid telefoonka iga dami rabo cunto karis waa taqaanaa maqaayad maa noo furtaa ka dhacdaa ku dheh hadda soo dhawaada hees janalka meel dheer hala gaarsiiyo sabskaraabka leydka commentiga sheerkan yaa loo kala harin meel dheer hala gaarsiiyo farkeetada waa ku baroobeynaya fajida waan kari waay maayo ma garanaya qaanta si wax loogu cuno kulan dambe oo xiiso leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu